بسم الله الرحمن الرحيم marka hore dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat bacda salaam waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob sida la adigeed waxaa jirta xubno siyaasiyiin iyo xildhibaano isugu jira oo u dhashay Jubbaland ayaa waxay ka hadleen arrinta maalmaha soo cusboonaatay ee Kismaayo iyo Gedo taas oo si ku talagal ah ama iska horkeen umadeed ah oo madaxweynaha Jubbaland iyadoo miiska wada hadalka la isugu imaanin oo warqad soo saaray uu ku magacaabay xubno reegadooda ah sida la aligeed warqadaas oo ka turjumaysa sidii ay isugu dhici lahaayeen dadka reegadoodka laakiin waxaan leeyahay maskaxdiinu kor ha u shaqeyso xubnaha Soomaaliga xamar ka hadlay ee arrimahan masiirka taagan ka hadlayna waan u mahadcelinayaa sida la aligeed waxaa jirta dad aan siyaasadda waxba ka aqoon oo iska caytamaya dadkaas waxay ku leeyihiin Axmed Madoobe iyo Cabdirashiid Janan shalay way wada socdeen maantana way kala tageen waa sax way kala tagi karaan ceeb ma laha in shalay la wada socday maantana la kala tago waxa weeyaan qorshaha siyaasadeed ama istiraatiijiyadda siyaasadeed weeyaan wax lagu kala tagayo Axmed Damca uu ka leeyahay kursiga ayuu qof kasta oo siyaasi ah Soomaaliyeed oo u dhashay Jubbaland damac uu ka leeyahay waxa la isku haysto waa kursiga laakiin shakhsiyadda Axmed maaha waxa dhaliisha keenaya waa kursiga aan shaqadii loo baahnaa lagu qaban ummadana sidii tahay aan loogu adeegin dad wax ma garata ah baa waxa weeyaan propaganda siyaasaddiina dhanka loo turjumaya Cabdi Cali Raage wuu hadlay wuxuu ku hadlay hadallo aad u qurux badan Cabdi Cali Raage waa siyaasi aqoon leh istiraatiijiyadda siyaasadeedna aad u yaqaano kuna xeel dheer systemka siyaasadeed ama systemka dowladnimo Cabdirashiid Janan sidoo kale Freitag sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta hadlay waxay ka hadleen masiirka Jubbaland meel xun in uu marayo godna uu ku sii dhici rabo waxaan oran karaa Axmed Madoobe hadduu uunan kalsooni ka haysanin dowladda federaalka oo hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud warqadaas ma soo saareen inkastoo oran kara warqadaasi waa waxba kama jiraan waana warqad loogu talagalay in la iska hor keeno ummadda Soomaaliyeed ee degto gobolka Gedo oo qoys isu laayaan sida la aligeed bal waxaan rabaa inaan dib u milicsano hadalladii ugu horreeyay ee uu ku hadlay Cabdi Cali Raage anoo soo qaadan doona kuwii uu ku hadlay isna Cabdirashiid Janan warqadan hadda la yiri waa la soo qoray oo hadda ragga odayaashu ay ka hadlayaan runtii anigu sidaan u arko ama aan ka aaminsanahay waa si ka duwan dadka qaarkood siday u arkaan kow Axmed waxaa waqtigiisa ka hadhay muddo aan u malaynayo 2 bilood inay tahay ama bil iyo badh sharciyan haddii halka haddaan intaa kaga gudbo hadalkii uu ku hadlay mudane Cabdi Cali Raage waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed inay baraarugaan dad baa waxay ku fogaatay qabyaalad Axmed Madoobe cidna ma jirto Cabdi Cali Raage Axmed Madoobe waa lama nool madeera Cabdirashiid Janan iyo Axmed Madoobe waa lama nool madeera Freitag iyo Axmed Madoobe waa lama nool madeera dad baa doonaya laakiin inay siyaasaddii wax kala ka dhigaan Axmed Madoobe kursiga uu ku fadhiyo bay damac siyaasadeed kaga jira xubnahaas maanta hadlay waxay kaloo u hadleen badbaadinta ummadda reer Gedood dadka reer Gedood waxay tabanayaan tabasho aad u fara badan sida la aligeed markii miiska wada hadalka la isugu yimaado tabashada la xaliyo dadku ay gacmaha isgeliyaan cid wax kala tabanaysa cid wax laga tabanayo la heshiiyo madal wadar ogol la isugu yimaado baa la oran karaa xubnihii dowladnimada loo dhiso haddii ay u sii dhisneedna alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin iyadoo aan wada hadal imanin waxaan oran karaa waa ku tagrifal awoodeed waa ku tagrifal sharka dowladnimo in dad Soomaaliyeed loogu hanjabo ama loogu waxa weeyaan loogu muqoonaya ama loogu awood sheegtana waa waxaan dhici karin dadka reer Gedo waxay ku nool yihiin nabad waxaa ragaadiyay colaado ay ka yihiin ururka khawaariijta ee Al-Shabaab dhibaatooyin badan u geysteen Kenya looga waxyaabaha u geysatay ee duqeyna sida la aligeed in maanta
dowladdii federaalka dadka gariirgada loola hoos galo oo waxa weeyaan awood kale loo sheegto oo loogu hanjabo oo iyagii la iska hor keeno maalin dhaweytaa BBC-du waxay wareysanaysay ninkii la soo magacaabay macallimow iyo guddoomiyaha gobolka Gedo si qurux badan buu hadlay laakiin macallimow waxaa ka muuqatay waxa weeyaan lax dhukan col iyo abaar midna muuqda الله نحرسته محمد علي كارية هذا كار وحول سميه كون سجال بقصتين iyo sagaalkii xilligii dawladda Soomaaliya ay burisay ay burburirtay riwaayad oran jiray dareenka fanaaniinta oo maxamed cali kaariye laftigiisu ku jiro wuxuu leeyahay haddii dheeh ay tiri dhiishigaal kuma jiro oo dhagoolkii dhaanka loo diray dhoobo maran sido dhuuxana ay tiri dharigii aan dhowranayna maanta kala dhacay naf dhan qalan oo gaajo dhacaysaan wax u dhiibtay dhuunta marisaan dhacaysay maxaa aniga la dhigay taasi mid ay anfacay sameeyay burcadhoon burqoriyo hubka waa ma lala dhacay bangi shilin dhex yaal jirin hadda dhoobo meerkii dhalaalkii yaraa guray bangi shilin dhex yaal jirin alla ilaahay shil baa dhacay xagee dhaanka loo raray marka maanta waxay taagan tahay alla ilaahay shil baa dhacay xagee dhaanka loo raray bal cabdirashiid janan dhisna dad baa aflagaadoon dad baa waxa weeyaan qaab qabiyaaladeed u hadlaya war waxa lagu wada hadlaya waa system siyaasadeed waa istiraatiijiyad siyaasadeed dadku in ay kala gartaan siyaasadda iyo waxa weeyaan qabiilka waxa la yiri doqontu meesha lagu kaftamay moodaa lagu kala tagay xubnahan siyaasiyiinta hadlay waa dad reer Jubbaland u dhashay shalay ka soo shaqeynayay maantana inay ka shaqeeyaan damacsan ujeedada ay ka hadlayaan waxa weyn Axmed wixii laga rabay maal laga helin tankii dawladnimo uu ka awood batay dalkii maadan xoreyn hormar lamaadan iman istiraatiijiyad cusub maliyid waxa weeyaan qorshe cadowga al-shabaab lagula dagaalamo maliyid sida la adigid waxaan rabaa bal cabdirashiid janana bal wuxuu ku hadlay inaan isla dhageysano inta hore barnaamijkan warqadaha wiftada ah oo senator xasan uu bilaabay saaxiibkay aniga macna fara badan ila malaha waxa uu arkaa caqabad iyo mashkulo oo isku kordhiyay Axmed Madoobe waxa jiro gobolkaas 12 sano oo maamulkaas uu dhisnaa la haystay gudoomiye gobol buu lahaa markasto waxaan rabaa inta haddaan kaga gudbo inta cabdirashiid janan waxa dhacday maalmaha kamid ah qoladan Etoobiyaanka ee Kismaayo degan ee magaalada Kismaayo ay u kala xiran tahay janankoodii ugu sareeyay baan la kulmay waxaan ku ori waxaad wadataan ilaa 100 BM waxaad wadataan intaas oo hoobiye waxaad wadataan intaas oo haduu leedahay madaafiic oo nooc ugu casrisan ah jilibaad bartan ka duqan kartaan war magaalada Kismaayo madaxtooyadeeda inaad fadhidaan maxaa ku isgareeyay waxay yiraahdeen laba qorshada labaduba aan xaq u maleeyahay waa midka koobaad Amazon baan nahay waxaan ku howlgalnaa istiraatiijiyada Amazon ama ATMIS mid labaad hadii inaan howlgalno ay noqotaba oo xataa anagu ATMIS aan xog la wadaagi lahayn oo aan Jubbaland gobolada ka maqan in aan magaranaysaa weerar ku qaadno al-shabaab ka kicino madaxweynaha Jubbaland istiraatiijiyad dagaal ama qorshe istiraatiijiyad dagaal kama hayno mid saddexaad ciidamada Jubbaland waxyaabaha aan ugu wareerna waxay yiraahdeen marka aan doonayno in aan anagu jilib qabano technique meesha ma socoto waxaan ku baxnaa waa infantry bulugudud baa la weeraraad maqlaysaa habeenimo waxaad maqlaysaa ciidan gurmad ah oo baabuur saaran sidii inay aroos yihiin war ciidanka Soomaaliyeed looma dhigi karo soo dhibaato lama gaarsiin karo sida la aligeed Jubbaland wax badan bay u baahan tahay laga habeeyo madaxweynaha Jubbaland wax qorshe istiraatiijiyadeed oo dagaalka al-shabaab ku wajahana noolamoon iman hadan xataa ATMIS la wadaagi lahayn aan oran lahayn waxa weeyaan hawlgal saddex geesooda oo dawladda federaalka iyo Jubbaland iyo anagoo ATMIS ah baan rabnay inaan qaadno haddaan oran lahayn oo gudbin lahayn xataa cabasho noocaas weli muuna soo hordhigin dee marka ma iska kacna ma iska duulaa waa waxaan dhici karin waxa weeyaan dawlad baanu ka nimid amar baan dad amar qaatayaal baan nahay ATMIS baan xukunta ATMIS dad amar ka qaataan nahay qofka marka waxa fiican in uu istiraatiijiyad siyaasadeed horta la imaado
dadka xubnaha siyaasiyiinta ee Jubbaland ee Axmed Madoobe dhaliilaya Axmed Madoobe walaal hadduu gurigiisa joogo cidnaba dhaliishan lamana barteen waxa lagu dhaliilayo waa talaada uu Jubbaland matalayo iyo dadka reer Jubbaland kursiga uu ku fadhiyo waa dhaliisho kursigu laba u qaybsamaa inaad dhaliil uu qofku ku mutaysto iyo inuu amaan ku mutaysto inuu amaan ku mutaysto oo horumarka amniga oo horumarka gaaro horumarka bulshada oo arrimaha bulshada kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashadii caafimaadkii biyihii daryeelkii bulshada oo dhan qof ku guuleystay inuu noqdo iyo in uu noqdo qof fadhiida oo wax siyaasad ah oo uga degsan aynan jirin kaabayaasha dhaqaale kaabayaasha horumarineed ee bulshada sida la aligeed waxa la dhaliilayo waa kursiga uu qofkan ku fadhiyo oo la oranayo ma geeyo dadka marka qabiilku uu madax maray laba noo ogaadeenana u kala hiilinaya ama laba noo ogaadeenana doonaya inay magaranaysaa midna caayaan midna waxa weeyaan amaanaan qofka nasabadiisa in la caayo waa xadgudub nasabadiisa qofka waxba lagama sheegi karo ama Axmed Madoobe ha noqdo ama qof kale oo siyaasadda ku jira ha noqdo ama mas'uul kale oo dowladda federaalka ha noqdo nasabada qofka in la caayo waa mamnuuc laakiin qofka istiraatiijiyadda siyaasadeed uu ku shaqeynayo waa la dhaliili wax ma tare weeyaan baa la oran dalka wuxuu ka qabtay ma jiro waxa weeyaan dadkii buu isku tirayaa ummadii buu rabaa colaad inuu dhex dhigo intuu waa la oranay sida la aligeed ummadda reer Jubbaland in ay horta bal intay baraarugto ay kala garato siyaasadda iyo qabiilka isku meel ma galaan wax isu soo dhawaadana maaha dadka marka dhibaatada ugu badan waxa gaarsiiyay ee maskaxdoodana waxa ku qufulay waa Axmed Madoobe inta uu xukunka joogo afar oday oo qabqablayaal ah buu ugu qodbeeyaa qabiil baan soo weeraraya horta qabiil soo weeraraya gada iyo Kismaayo intaasoo kilomitir baa u dhaxaysa dhexdoodii xataa cadow baa degan baa khawaarija meel isku soo gaaraan ma jirto marka la rabo in dhiigga ummadda la xalaashado ama qof Kismaayo ku nool oo reegadood ha noqdo ama reegadood marka la rabo in la xalaashado baa waxaa laga hor dhigaa qabiil baa lagu soo duulay Axmed wuxuu rabaa inuu marmarsiinyo ka dhigto warqad sharci darro intuu dadka ku dhex tuuray oo ay rabaan oo rabay inay reegadood iska hor imaadaan iyo wuxuu rabaa inuu berito oo ku marmarsiinyado amarkii bay fulin waayeen amarka in la qaato waxaa ka horeysta inaad adigu horta ummadda u hoggaansanto mas'uul wax maqla mas'uul wax hormariya inaad horta adigu tahay oo dhegeysi leedahay ummadda adu ay natasho inaad muquuniso waxaa ka weyn inaad dhegeysato cabashadooda qof wax ka qaban karo wax ka bedeli karana aad noqoto intaasoo sanaad fadhiday wax horeynood samaysay ma jirto sidaa la aligeed waxaan u soo qaatay fiidiyogan in bal dadka reer Jubbaland ay kala gartaan qabyaaladda iyo siyaasadda Axmed lama necbo waxaa la neceb yahay siyaasaddiisa qabiilkiisa lama necbo waxaa la neceb yahay kursiga sida uu maamulayo shakhsiyaddiisa lama necbo waxaa la neceb yahay sida uu uga shaqeeyo sidii looga hortegi lahaa khawaarijta waddanka intiisa badan haysata sidaa la aligeed qofkii Axmed u malaynaya in mas'aladiisa wax loo dhimaya ama qabiil ahaan lagu nacayo ama lagula dagaalamayo idinka qabiil kuma necba dadku waa xigtaale way wada dhasheen sidaa la aligeed Cabdi Cali Raagi iyo Axmed waa laba nin oo mas'uuliin ah oo ilmaadeer ah Cabdi Cali Raagi meeshuu Axmed ku fadhiyo hadduu ku fadhin lahaa dhaliishaas mid la mid oo man u soo jeedin lahaa
kii kale ku fariistana hadduu dalka hormariyaan alxamdulillahi rabbil caalamiin waa nin dalka hormariyo waa sidii loo baahnaa dee ummaddu waxa weeyaan waxay ka hadashaa ma jirto haddii uunan wax horumar la imaanin wax istiraatiijiyadana dee qofka waa la leeyahay shaqadan ma geedid baa la leeyahay aqoontaadii ma aha khibraddeeda ma lihid isaga tag waxaad ogtihiin dalka boqolkiiba 99 magaalada Kismaayo waxaa wax ka qabtay waa ciidanka wax ka qabtayna dhibaatada ugu badan bay ku jiraan qaarkood siyaasadii baa lagu duleynaya sidaa laaligeed waxaan leeyahay dadka reer Jubbaland ummadda Soomaaliyeed maanta inay aragto arrimaha gada laga damacsan yahay waxaan hadalkii ku soo koobayaa hoos waxaa loo fiiriyo miiskooda hadalkan la isugu yimaado axmedna waqtigiisii qofku ka dhamaaday intuu soo joogi kara soo joogay maantana wax qiil oo kale inaan loo haynin ummadda reer Jubbaland way arkaysaa siyaasiyiintuna way arkaysaa ummadda Soomaaliyeedna way arkaysaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh